waxaan isleeyahay qaad markaynu dhahno Soomaali qofka ahi malaa waa well experienced yani waa qof si fiican u yaqaana qaad wuxuu galo iyo wuxuu gudaba taariikhiyan dib ugu noqon maayo laakiin qaadka waagii hore reer galbeedku juhdi badan may gelinin waayo dhulkoodana laguma cuni jirin mana aqoonin nimankii ugu horeeyay soo arka waxay ahayn shantii nin ee Scandinavian-ka laga diray ee magacaba uu bixiyay ee Yemen tagay iyagana markii dambe kana caalaysayba way madheen marka umuuman la eego marka qaadka daraasaadkiisu waxay inta badan bateen toddobaatanaadka wixii ka dambeeyay baxthi badan baa lagu sameeyay natiijooyin tiro badanina way ka soo baxeen daraasaad jaamacaad tiro badan kuwa Mareykanka kuwa Jarmalka kuwa Switzerland qaar Ingiriiska dad badan baa sameeyay buxuus Sacuudiga xataa jaamacaddii Soomaaliyeed ee Muqdisho ee baxthi bay ka sameeyeen 83 marka la eego buxuustaasi tirada badan lee laga qoray runtii dhammaantood waa ku argagax gelinayaan wax wanaag lagu sheegayaa ma jiro tala United Nations WHO 1973 baan filayaa markay baaritaanadoodii koowaad sameynayeen 40 maaday sheegeen oo ku jira laakiin waaga may aqoonin maadada tan ugu khatarsan ee cathinone la yiraahdo waayo cathinonku maadaday marka iyagu moodayeen inay ugu khatarsantahay ku jirta waa cathinku waa light drug waa stimulant waa drugska saddex qaybood bay u qaybiyaan qayb kicisa jidhka iyo maskaxda iyo qofka bini'aadamka fikradiisa iyo qayb nabto oo dejisa oo hurdaysa iyo qayb hallucination khayaalun iyo inuu wax maqlo iyo riyo ku itixaanta qaadku isagu wuxuu ku jiraa waa stimulant cocaine la kooxiyay waa qaybaha kiciya qofka bini'aadamka qaadka marka ugu horeysay wixii ay ka heleen maadada caffeinka oo ay ku tilmaamayaan inay psychoactive drug tahay oo ay la drug fudud tahay ayay moodayeen inay wax walba tahay inkastoo iyada lafteedu caffeine anti-doping agency-ga mamnuucaadkiisu ku jira qoladan orodada iyo Olympiga iyo kuwa wax ciyaariya maadaadkan laga baadho ee qofka laga inuu dragaysan yahay in kale kuwaasay ka tirsan tahay waxa uu shartiya inuu 5 microgram per milliliter inuu ka yar yahay hadduu 5 microgram soo gaadho waa drug abuse waa kuwan orodada laga reebay iyo waxaan oo dhan bay ku jirtaa marka asliyan iyaba waa maado ah maadaadka dunida loo rumaysan yahay inay drugska ka mid tahay laakiin way ka fududahay ta kale marka loo fadlan haddii aad channelkeena hore aadan ugu jirin fadlan subscribe noo saar kuna soo biir kana mid noqo asxaabta ku xidhan channelka hoyga bulshada waa mahadsantihiin asxaabta qaaliga ah لا نحتاج المال كي نزداد جمالا جوهرنا هنا